qiin yacni wax kaleeto qalbigaaga kuma soo dhacayn hurdo iyo waxaasoo dhan waa iska tireen ilaahay u soo jeesanay qalbigaaga wax walba ku jira ka tuuray sirriya إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. السلام عليكم أصحابتي كو عصبي كو قدام وصبير دمانتينا waatana ahee masterka faa'iideysa dig ee soo dhahday marka waa ikana qaybtii labaad ayaan soo gelinaya qaybta labaad waxay noo mareysay wiilkii uu sheekhu ku leeyahay waxaan ku hayaa daawadaada insha Allah daawadadan aan ku sheego qaadidne awlaad waa heli doontaa waxaa dhacday marka wiilkii inuu sheekhu ku yiraahdo waxaa laga rabaa in aad soo kacdid habeenkii waqtiga yani salaada subax inta la gaarin saacad ka hor soo kacay hal saac ka hor salaada subax soo kacay hal saac ka hor salaada subax markaa soo kacdid halka saac waa kala qaybinay nisfiga hore waxa waaye waxa uu istaagay salaatul leyl salaada tukanay nisfiga dambana waxa bilaabay istighfar ilaahi ya baryaysa oo istighfar weydiisanaysa astaghfirullah 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 qof walba yaqaana marka dadkeena inta badan Soomaalida waxa ku arkaa astaghfirullah maahane istaghfirullah ee dhahan marka taas kelmadaas way qaldan tahay totally hal iska ilaaliyo astaghfirullah waay istaghfirullah waxa lahu ma jiraan waana kelmad qaldan marka wiilkan uu soo kici jiray ma habeenkii koowaad marka wuxuu bilaabay inuu soo kaco markuu soo kacay yani hurdo soo dareemayo oo waxaan ku dhahaa haabaansanayo ayuu soo kacay oo sameeyay sidii asagoo yani iska tukanayo oo waxaan ku dhahaa hurdaysan ayuu habeenkaas jiiftay xaaskiisana muunan la wadaaginin waxaa dhacday marka inuu sidii kale soo kici jiray habeen kasta soo kici jiray asagoo isku hurdoonayo oo يعني اسكجل جرى برنامج كان أو دعاء صلاة بس وحنا على النواب بلاد إن ويلكي أرنتي ودي وإحنا تيجانا ونأكل كدي بشيء قايو إمادي وبلا آدم ودعاء سمعا إلهي من قدر سبحانك يا عظيم نبكينا دنبجينا حمانتينا صبر لآنتينا والفيل لو بلاد أيودو قادة واعي يعني maxaa la yiraahdaa ilaahayna intaasan dambi ka galayna oo yani noo dul qaadanaya waxaa dhacday marka sheekhi ay wiilka soo orday wuxuuna ku yiri sheekhow dhageyso wadadii ii jeexday ama qaad ii dhahday ana waa qaaday wax natiijana ma arkinin waata ugu dhahday waa ku faa'iidi doontaa hadda maxaa jiro sheekhu wuxuu ku dhahay dhageyso wiilho waxaan yani ku sheegayaa haddii usoo kacday adigoo ilaahay isku xiraayo qalbigaaga uu soo jeedo oonan hurdaynin oo ilaahay yaqiin yani wax kaleeto qalbigaaga kuma soo dhacayn hurdo iyo waxaasoo dhan waa iska tireen ilaahay u soo jeesanay qalbigaaga wax walba ku jira ka tuuray si real life ha isku duleynay salaada tukanay nisfiga hore nisfiga dambe oo maxaa la yiraahdaa hal saac oo salaada ku horeyso soo kacay maahan nisfiga hore salaatul leyl tukanay adigoo adduunyo iyo waxyaabo kale iyo qalbigaaga ka saaraysid khushuucan lilaahi u tukanaysa nisfiga dambe waa fadhiisanay astaghfirullah 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 yani gacantan waxa waaye 15 waaye fahantay tan waa 3 lagu dhufto 5 waa 15 laba mar hadaa ku celiso 30 waa hal xabada ku dartina 33 ma fahantay tusbaxba ayada kaaga fiican aqarna ayada hadoo soo fahmin marka gacantan laga faa'iideysto gacantaada ku dhihi kartaa marka astaghfirullah 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 marka sheekhu wuxuu ku dhahay hadaa sidaas min qalbi u dhahdid وحاول إنه إلهي كأقبله دعو إلهي ما أقبله ويعني قلبي يقين لهين نقول عيستو ما فهمتي هدي أسي يقين إلهي برسي حارجينا إن أدكولي ستيت ولا شيء حاس كذا نقشة هذه يضرب سلسل كعة لبدين قلبي نظيف فيهن صوت إلى القرآن كم حنا وشيء يا
يعني dadka aakhire imaanaya maxaa waaye dadka qalbiga saafiga leh oo ilaahay yani jannadiisa galaayo yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. ma fahamtid? marka qalbigaaga oo saafi yahay oo ilaahay u keliyeysid insha allah waa guulaysanay oo dhahay. wiilkii sidii ayuu ku waday 2 bilood ka bacdina waa u guulaystay oo yani bil kadib astakfirullah natiijo helay. kadibna xaaskiisii isbitaalka ula orday. markuu isbitaalka geeyana waxaa la yiri oo lasoo baaray waxaa lasoo sheegay in ay xaamilo tahay. subxaan allah. marka qalbi nadiif ilaahay haddaa ku barisid istikfaarta iyo salaatuleylkana insha allah faraj ayuu ilaahay kugu furi doonaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. intaa muuqaalka xig ku hormi doono soo dhawaada laagtana hayga ilaawi.